إخواني أحبابي الصغار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni u sheekeeya caruurta. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay qisatu islaami الصحابي الجليل طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. هيا هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه wuxuu ka mid ahaa ashraaftii carabta, qabiil ka mid a qabaaisha carabta oo la dhihi jiray Daws ayuu madax u ahaa. marka nin aada looga yaqaano jaziira alcarabiya ayuu ahaa, oo maaragtay marmuuqa oo shariif ah, oo maaragtay dhaqamo wanaagsan iyo madaxnimo iyo maaragtay odatinimo lagu yaqaano ayuu ahaa. wuxuu soo aaday magaalada Maka oo maaragtay maxay ahayd waqti aad xaalku culus yahay, oo ay loolankii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer Maka u dhexeeyey oo meeshii ugu kululayd uu maraayo, oo reer Maka odayaashoodii ay juhdigooda meesha ugu dambeysay ku bixinayaan dadkii inay ka leexiyaan in ay xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam la yimid inay qaataan. haddii aan noqon lahayn dadkii reer Maka iyo haddii aan noqon lahayn dadka kale oo magaalooyinka kale ka imaanaya, in aysan maaragtay arrintan maqlin oo aysan qaadanin, ay maaragtay aada ugu dadaalayeen. marka isagiiyo khabardaar oo waxba la soconin ayuu soo aaday magaalada Maka. marka Makana waa meel aada loo yimaado oo cimro iyo xaj iyo tijaaro intaba waa loo imaan jiray. markuu magaaladii yimid isla markiiba waxaa soo dhaweeyey odayaashii reer Maka. aad bay u soo dhaweeyeen, waxa waaye si maaragtay ixtiraam leh, qadarin leh, haddana nin weyn oo caan oo la yaqaano, iyo haddana arrin kalena waxaa ugu jirta ninkan waxay ka baqayaan in maaragtay akhbaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay gaarto oo nabiga wax ka maqlo, oo markaa warkii intuu ku qanco u qaato. marka soo dhaweyntii iyo marxabeyntii laga baxay waxay ku yiraahdeen Tufaylo, hadda waxaa naga soo dhex baxay nin maaragtay diin cusub noola yimid oo maaragtay maxay ahayd annagii dhanna kala jabiyey, oo fitna noo maaragtay na dhex dhigay, oo maaragtay aad bay ugu fool xumeeyeen. marka waxay yiraahdeen ninkaa waxaan rabnaa inaadan maaragtay maqlin oo aadan macnaha warkiisa imtixaanka ama dhibka anaga uu naga soo gaaray adigana inuusan qoomkaaga dhibkaasoo kaleta gaarin darteedaan kugu naseexaynaynaa. marka ninkaa ha u tegin, hana dhegeysanin warkiisa, laanno hadalkiisa waa hadal sixir ah. waxa waaye wiilkii iyo aabihii buu kala geynayaa, maaragtay ninkii iyo walaalkii buu kala geynayaa, ninkii xaaskiisa buu kala geynayaa. marka hadal oo sidiisaba sixra waaye, haba dhegeysanin oo maaragtay ka fogo. marka siday igu wadeen warkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhbaartiisii iyo kharaa'ibtiisii iyo siday ugu foolxumeynayeen baa waxaan go-aan ku gaaro yiri inaanba warkiisaba dhegeysanin oo aan ka fogaado ayaan go-aan ku gaaro yiri. marka sidai caadada ahayd kacbadii soo aaday inuu ku dawaafo oo asnaamtii barakaysto. marka nabiga calayhi salaatu wasalaamna meesha ayuu ku cibaadaysanay, ayuu ku tukanay. marka si uusan warkiisa u maqlin ayuu dhegta wuxuu gashtay maaragtay suuf ayuu gashtay oo isaga ilaalinayo. marka asigiyo xoogaa dawaafkiisa iyo wixiisa wato wuxuu leeyahay waxaan dareemay inaan marka ka dambe aan sii dhawaanayo oo nabigii aan sii dhawaanayo. ilaahay subxaana wa tacaala meeshaan waxa wata maaragtay qof ilaahay inuu hanuuniyo rabo miya hanuunkii laga celin karaa. marka wuxuu soo dhawaaday baa warkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabigu waa tukanaya, qur-aan buu akrinaya, hadaladii baa qaar ka mida soo gaargaaray. markaasaan isla hadlo yiri, waxaan iri nin caqli badan baa tahay oo garasho leh oo wax kala qiimeyn kara. maxay ku dhacday inaad qof warkiisa aad maaragtay tiraahdo yaana dhegeysan, haddaan dhegeysto waa yacni maxay arrintaa ku timid? baad dhegeysatid oo qiimeysid, hadduu warku sax yahayna qaado, hadduu khalad yahayna hadduu khalad ka fahmi karta. markii baan suufkii iska baxshuu yiri oo aan nabigii warkiisii sallallahu alayhi wasallam dhageystay. marka uu dhageystay nabiguna uusan maaragtay maxay ahayd la hadlayno, laakiin uu dhageysanayo aayadihii qur-aankii iyo wuxuu nabigii ku duceysanayo ku cibaadaysanayo ayuu maaragtay maqlay. aad buu warkii ula cajabay, marka uu la dhacay, uu jeclaystay. markaas ayuu xoogaa iska sugay. marka ilaahu nabiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiisa dhammaystay
gurigiisii u laabtay. markuu gurigiisii aaday uu soo daba raacay, guriguu ka daba yimid, uu ka idin qaatay, soo geliyey nabiga caleyhi salaatu wasalaam. arrintii u sheegay, wuxuu yidhi aniga ninkaas baan ahay, waa maaragtay maxay ahayd odayaashii reer makana waxawaaye juhdigaas bay igu bixiyeen, waxay yidhaha ninka ha u dhowaanin, anigana sidaan baa dhacday, waxaan arkay inaan maarata kuu soo dhowaanayo, kadibna waxaan siri bal dhegeyso, kadibna warkii waan jeclaystay, bal arrintaada ii soo bandhig oo ii sharax. sidii marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam islaamkii iyo dacwadii iyo xaqaa'iqdii ula yimid ayuu u sharxay. aad ba qalbigiisa ilaahay ugu dejiyey. aayado qur-aan kamid uu ku dul akhriyey. aayadihii maarata qalbigiisa aad bay u taabteen. intii markuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ka maqlay ayuu meeshii ku islaamay, shahaadadii maarata ku qiray. nabiga caleyhi salaatu wasalaamna maaragtay uu maalmo la joogay, uu qur-aankii qaar kamida aayado kamida suurado kamida uu xifdiyey, oo maaragtay maxay ahayd tacaaliimta islaamka uu nabiga ka bartay caleyhi salaatu wasalaam. kadib nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu la hadlay, wuxuu ku yiri rasuulka ilaahayow, waxaan ahay nin qoomkiisu ay adeecaan oo oday u ah, marka waxaan rabaa inaan qoomkii ku noqdo oo aan islaamkii iyo wanaaggii aan kaa bartay inaan gaarsiiyo. marka ilaahay subxana watacaala waxaad iga barisaa in uu aayad ama calaamad ilaahay ii yeelo oo iyo sahasho marka dadku inay maaragtay wixii iga maqlaan. markaasaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ilaahay u baryey, uu yidhi allahuma jcal lahu aaya. waan baxay buu yidhi, anigoo magaaladii usii dhow ama meeshii dadkii ay deganaayeen qabiilkii baa wejigeyga labada indhood dhexdooda waxaa kasoo muuqatay iftiin baa kasoo muuqday. markaasuu ilaahay baryey, wuxuu yidhi ilaahayow wejigeyga meelaan ahayn iga dhig. waxaan ka baqay uu yidhi in dadku is iraadaan ciqaab baa ku dhacay oo maaragtay maadaama uu diinteeni ka tegey baa ciqaab ku dhacay, in is iraadaan baan ka baqay. marka ushii baa ilaahay ugu wareejiyey. markaas ushiisii afkeedii hore iftiin bay noqotay. waxaa la moodaaba inay faynuus ku xiran tahay maaragtay siday u iftiimayso. markii uu meeshii tegeyba hore ayuu ka bilaabay dadkii inuu maaragtay dacwadii gaarsiiyo, isagoo aan banasaninba hooshii weyneed uu u yimid ayuu hore ka galay. dadkii u horeeyey ka hor yimid waxaa kamid ah aabihii. odayga aabihii marka soo dhaweynayo da wiilkiisii u yimid oo maaragtay safar ka yimid. markaas wuxuu ku yidhi aabbo iga leexo, maaragtay iga leexo, aniga adiga shaqo iskuma lihin, aniga waan islaamay, diintii nabi maxamed sal ly slam uu la yimid baana qaatay, adigana diintii baadilka ahayd baad ku jirtaa, marka shaqo iskuma lihin, aabbo iga leexo. aabiha marka wuxuu yidhi maxay ta aniga maarata wiilkayga iyo diintaadi waa diintayda, wixii aad qaadatayba aniguna kula qaadanaya. markaasuu orod baxo, soo qubayso, isoo daahiri, iisoo noqo. odayga waa isoo daahiriye, waa soo qubaystay, soo noqday, islaamkii u sharxay, wuu fahansiiyey, odayga sidii ku islaamay. haddana xaaskiisii u timid, wuxuu yidhi iga leexo, iga fogaa, shaqo iskuma lihin anigu waan islaamay, diintii alla baan qaatay, rasuulka ilaahay baan rumeeyey, iga leexo, shaqo iskuma lihin. ayadana waxay ku tiri hadda adiga diintaad qaadatay waa anigana diinteyda ah. ayadana wuxuu orada soo qubaysay, soo daahiri, way soo daarayso, soo qubaysatay, siduu iyadana islaamkii ugu sharxay. qoomkii kale uu dacwadii u bilaabay way ka dhaga adeegeen oo warkii kama aysan yeelin. waxaa kaliya oo warka ka yeelay oo soo raacay abu hurayra radia allahu canhu, saxaabigii mashhuurka oon garanayno, axaadiista warinteedana caan ku ahaa, ayaa maaragtay dadkii kasoo raacay. kadib nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu soo aaday, markuu soo aaday isagii abu hurayra markii ay isla yimaadeen ayaa maaragtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay marka iswareysteen. nabiguu sheegay, nabigaa weydiiyey, wuxuu yidhi ka waran bal Tufaylow dadkii maxaad kala kulantay? markaasuu yidhi quluub adag oo aan xaqa maqlaynin iyo gaalnimo maaragtay lagu adkaysto ayaan kala kulmay, dadka xaqi way iga diidan yihiin maaragtay. marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuu istaagay, wuu isa qaatay, ilaahay buu gacmaha kor ugu taagtay oo duca u bilaabay. marka abu hurayra wuxuu u maleeyey oo ka baqay inuu nabigu inkaarayo reer Daws maaragtay. markaasuu wuxuu yidhi maantay qoomkeygii waa maaragtay yani waxaan ka baqayaa inay halaagsameen maaragtay, waa qowmaa ayuu yidhi maaragtay. wuxuu yidhi nabiga ayaa inkaarayo oo halaag baa ku dhici doona. marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam ma habaarine wuu u duceeyey, wuxuu yidhi allaahumma hdi dawsan, allaahumma hdi dawsan, allaahumma hdi dawsan, reer Daws ilaahay hanuuni ayuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam ugu duceeyey. kadibna Tufayl buu la hadlay, wuxuu ku yidhi qoomkaaga u noqo, una tur, islaamkana ugu yeer oo u sabar ayuu ku yidhi. sidii marka dadkii ugu sii waday dacwadii inuu maaragtay islaamkii u sharxo oo ilaahay baro, isagoo marka u sabrayo oo u dulqaadanaya siduu nabiga caleyhi salaatu wasalaam dardaarankiisii ahaa. ilaa maalinba maaragtay dad cusub ay islaamkii qaataan. marka wuxuu soo laabtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo kasoo noqonaya dagaalkii Khaybar ayuu isagana soo aaday
maxay ahayd Madiina, Tufayl ibn Camr ad-Dawsi, oo markaas ay la socdaan 80 reer oo reerihii Daws ka mid ah oo soo islaamay, islaamkoodina sugnaaday. marka nabiga calayhi salaam uu Khaybar ka soo noqday iyo ayaga ayaa wadada ku kulmay. nabigina aad ay ugu farxay sallallahu alayhi wasallam, ghanaa'imtii Khaybar laga soo qaatay ghanaa'im fara badan ahaydna wax ka siiyey. halka ayay sheekada noogu eg tahay. sheekadan waxaan ka faa'iideysanaynaa hanuunka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu gacanta ku hayo. qofkii ilaahay hanuun ula doonana qof hanuunkaa ka celin kara inaysan jirin. waxaan kaloo ka faa'iideysanaynaa xaqu inuu yahay mid waadix ah, oo qof kasta oo xaq doona oo si degan oo cadaalad leh u dhageysta inay sahal u tahay inuu qaato, uu fahmo, uu ku dhaqmo. laakiin haddii qofku uu dhagaha iskaga xiro ama uusan maqlin ama uu ka cararo, runtii asaga khayr badan meesha ku weynayo. waxaan kaloo ka faa'iideysanaynaa sida ay dadka baadilka wata ay ula darirayaan xaqa, oo ay juhdi ku bixinayaan ummaddii inuusan khayrka gaarin, oo ay markaas ummaddaasi shar badan ugu horseedayaan. waxaan kaloo ka faa'iideysanaynaa in dadka xaqa in la gaarsiiyo inay u baahan tahay in loo samro, in loo dulqaato, in tartiib wax loogu sheego. waxaa dhici karta hadda inaysan yeelin, laakiin mar kale inuu qofkii wax kaa yeelo. walidaalika adiga marka inaad qof hadda wax ka saxayso ama khalad ka celinayso, inaad u sabarto tartiib tartiib tartiib. waxaa dhici karta maalinka dambe inuu qofkii wax kaa maqlo, laakiin hadda hal maalin aad ku xanaaqdo ama ku qayliso ama aad ku buuqdo, qofkii adiga baa sii ceerinaya. mahadsanidin. intaan sheeko kale kaga kulmi doonno, waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.